السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قروحda badan kusoo dhawaada video cusub muuqaalka ii like garee ii share garee soo dhawaada soo dhaweynta quruxda badan yaa loo sameeyay Bibi Caamir kusoo biira reerka Allahumma baarik ma sha Allah tabaaraka raxmaan mar walbo insha Allah muhiim ku tahay hooyo hadaa tahay inay yeeshid talada dhakhtarka halkan waxa uu mahadcelinayaa tutoreysa Faadumo si qurux badan oo u adeegtay ayada iyo teamkeeda halkan uu mahadcelinayaa kalkaal qaybta tarjiinka joogta waa tutoreysa naxariis badan teamkeeda dhakhtaradana qaybta baxnaanada joogta waa dhakhtarad ma sha Allah tabaaraka raxmaan team kalkaal oo isku duuban waxaan leeyahay waa maasantiin abaayada qaybta delivery joogta ayay teamkiisa qurux badan soo dhaweeyay si qurux badan ugu adeegeen halkaas uu mahadcelinayaa sababta babygeena uu gala dhalada waxyaabaha keenay inta insha Allah hooyo hadaa tahay xaamilo tahay ama rajeynaysid ama caqabadan hore ee ku soo martay videogan wax badan insha Allah ka faa'iido doonta waxyaabo badan ni faahfaahin doona muuqaalka insha Allah degsanin fiirso ina like garee ina share garee qaybta comment-kana uga hooyo xaaladahaas ku aragto ama ilmaheeda ku aragto insha Allah waana mahadsantiin gabdhiga quruxda badan design-ka quruxda badan dooranay oo simbalkee maadaama waqti fara badan xaalado fara badan ku jirnay abaa marka koowaad si caadi ah ma uu mushay mas waa qaliin hooyo abaayo waa la qalay ma fahanteen sababta loo qalay iyo xaaladaha dhan insha Allah waan iiga sheekeyn doonaa baby sis quruxda badan iyo hooyada ugu talagalna qolka ugu sharaxno simbalka ee mar walba waxyaabaha fudud dooro ma sha Allah tabaaraka raxmaan wadankeena uu taga uu tilaabsada wax walba jeceshahay waa heli kartaa waa sameeysan kartee hadii aad awoodid insha Allah mar walbana hooyada xaalad far badan ee mareysa mar walba farxadeeda kor loo qaado waliba hooyada markay ugub tahay ama dhasho ee tahay waase mar walba hooyada foolato ama xaalad marta waxay u baahan tahay farxad far badan wax yar oo sameysida moodkeeda bedeli karo nolosheeda wax badan ka bedeli karo xaaladeedana qurxin karo wax yar sameysidna waxay noqon karaa wax caqabad ku noqoto waligeed nolosheeda ka bixin marka hooyooyinka markay umulaan muhiim waa insha Allah care fara badan ama daryeel fara badan in loo sameeyo marka ma sha Allah tabaaraka raxmaan sidan qurux badan abaayo ku soo dhaweynay team badan WhatsApp ka soo saartay abaayo adi ma dhashay babyga adi ma dhashay dib la'aan dhalay abaaya dhashay insha Allah su'aashaas inaan iga jawaab rajeynaya idinkana video-ga iga soo dahay team YouTube ama gabdhahayga team nutrition YouTube ka ii raali ahaada sababta u soo dahay isbitaal waxa ku jirnay 4 maalin oo xiriir ku jirnay intaas isbitaal taagneen xaaladda babyga naga galay marka video-ga waqti hore inaan soo gudbiyo waa rabay laakiin sabab jiro oo waqtigan iga soo gaaray muhiimada video-ga u duuban anoo video duubi karina waxay ahayd in xaalad walbo hooyo walbo xaamile ama jecel inay wax ka ogaato xilligeeda dhalmada inaa wax badan ka fahansiyo marka insha Allah waa mahadsantiin ii soo dhawaada muuqaalka mar hore like saarta rajeynaya share gareysay waana mahadsantiin dhamaantiin dulqaadka mar walba ay sameysaan aba nutrition waxa kugu dhacay team badan ay soo raadiyay WhatsApp-ka call-ka inta insha Allah waan iiga mahadcelinaa jazakallahu khairan inta maqnaashahayga mar walbana abaayo waxa kugu dhacay ka walwala insha Allah YouTube-ka quraana la saaraya team nutrition warkiisa waa la soo gabgay YouTube-ka waa loo fariisanaya quraana la saara quraan saar u baahan yahay idinkan insha Allah ducada halkiina ka soo wada waana mahadsantiin sharaf iyo karaamo babygi inta ugu horeeysan waa hordhac babyga la keenay ma sha Allah tabaaraka raxmaan abaayana waa la soo wadaa ma sha Allah tabaaraka raxmaan caafimaadkiisa wuu fiicnaa alxamdulillah kadib waxa la dir iska galay xaaladiisa xataa ma sha Allah xaalad darmeen laakiin xaalad hadii markaas isla markii dhakhtar meel uu joogo lagu dhali lahayn ama xaalad dhakhtar uu arki lahayn xaalad oo risk u gali karo oo noloshiisa iska bedeli kartay ahayd wax badan marka alxamdulillah wadankeena wuu hormaray mar walba insha Allah isbitaal marka ku dhaleysay 3 qodob ka fiiri koo waa inuu joogaa dhakhtar caruur naxariis badan waa inay joogtaa dhakhtarad oo haween oo naxariis badan ee kalkaaliyaasha intaas oo dhan isku heli kartid laakiin muhiimad waxay tahay adeeg hospitaalkaas hadii aad ku qanacday dooro waa isbitaalka kugu wanaagsan adiga iyo caruurtaada isbitaalkan kalkaal sababta u dooran waxay tahay waxa ka helaynaa wax walba u baahneen hadii ay noqoto dhalada hadii ay noqoto care-ki hadii ay noqoto qaliinki wax walba hooyada u baahanta iyo wax walba ilmaha u baahan yihiin inta uu isku kulmsaday ma sha Allah tabaaraka raxmaan sababtaas u dooranay dhakhtarad naxariis badan iyo teamkeeda aan ku soo jiidanay ma sha Allah tabaaraka raxmaan hadaa hore u maatay qaybta kalkaal darjiinka lagaaga ma sheekeenayo hadaa hore u imaan insha Allah soo imaaw qaybta delivery-ga imaaw insha Allah si qurux badan gabdha naxariis badan dulqaad badan samar badan si qurux badan marka murugsantahay kula murugoonayo marka faraxsantahay kula farxayo yaa laga helaa
tiim kalkaala laga helaa halkaana uu madalina dhammaan tiim kalkaalo isku duuban waa mahadsantiin khaasatan tiimka ka shaqeeyo darjiinka qaybtaas aniga tagay 4 bari la soo joogay xaaladooda soo arkay soo qiimeeyay ku qancay sida qurux baadiga inuu qabteen halka marka keegiya ku shidan waa soo dhameynaya welcome baby Amir ataagna ma sha Allah tabaaraka rahmaan marka xaaladda abaayo marka hore insha Allah niga sheekeen doona xaaladda koow abaayo waxay ahayd 41 wiigay gaartay nabarka foosh uu imaan waaye dhaqtarada go'aan waxay qaadatay maadaama abaayo ugub ay ahayd in la tijaabiyo 6 saacadood oo tijaabe ilaa 12 saacadood oo tijaabe jirkeeda inuu maro oo la fuuliyo ma fahanteen saacadood oo xiriiri abaayo fuulinaysa nabarkeeda uu xooganaa laakiin wax isbedel ma jirin mar walbo oo wiisata la sameeyo lambarku wuxuu ahaa 3 furan tahay 4 furan tahay ma fahanteen marka insha Allah nabarka saaid uu ahaa ilmahane mar walbo nabarka hooyada saaid uu qabto neeftooda yaraanaysa mar walbo ilmaha hooyada xanuunkeeda uu qabto cunuga halis ku jira li'annahu cunuga inuu soo baxo u baahan yahay meel uu soo maraayna ma laha marka insha Allah mar walbo muhiim ay ku tahay insha Allah inuu dhaqtarka go'aan uu gaaro mar walbo cunuga wadna garaacis in la socdo minad loo saaraay xaaladda abaayo waa la socday alxamdulillah si qurux badan aan lagu adeegay ugu dambeyn markii la gaaray 1 saac bar oo habeenimo maalinta khamiisteen ugu bilaabatay fooliska waxaana go'aan la gaaray habeenkii jimcaha soo galeysay 1 saac bar waxay dhaheen abaayo dhaqtarada waxay dhahday ugu dambeyn khalaas fursad waa siinay ilmahana wadna garaacooda yar waa khalaas waa in la saxiixa alxamdulillah familka ma sha Allah tabaaraka rahmaan wax buuq iyo wax muran dhaxdooda kama dhicin alxamdulillah si nabada loogu saxiixay si nabada babyga noogu dhashay maadaama 41 week oo ahaa fooshana waqti fara badan uu soo socday ay soo socotay ugu dambeyn la qalay babyga maxaa lagu arkay marka hore uu caafimaad qabay wuxuu la soo kulmay dhaqtarka caruurka caafimaadkiisa 100% oo ahaa kadib laakiin waxaa laga baaritaan la sameeyay baaritaanka la sameeyay wuxuu sheegay beerkiisa dheecaana la rabay in lambarkii laga rabay inay ka yar yihiin muhiim inay tahay inuu helo qandac ama qorax xiligaas oo baaritaanka uu soo baxana waqti qorax la helaayo ma ahayn waxaa la dhahay waa in la geliyaa dhalada oo la qandiciyaa oo caawa uu ku hoydaa biriya laga bixin doonaa jawaabtana waa arki doonaa biidnaa kareem habeenka sidoo noogu hoyday qaybta oo baxnaanada babyga habeenka maalinta soo baxayno habeenkeedu naga galay alxamdulillah si nabadoo noogu soo baxay ma sha Allah tabaaraka rahmaan si qurux badan noola soo macsalaameeyay tiim kalkaalo isku duub waxaan leeyahay waa mahadsantiin dhamaantiin si quruxda badan aan noogu adeegteen marka insha Allah waxyaabo badan ah hospitaalka inta jooga aan soo arkay hooyo waxa arkay ilmaheeda ay qaloocan yihiin ilmihii hore si shaksan ku dhashay ama qaliin familkeeda ama xaajigeeda uu dhahay caadi u dhali kartaa nabarka hay ilaahay ogya ilmo qaloocan hooyo qaliin hore uu dhashay sidee caadi ugu dhali kartaa ugu dambeyn gabadhaas ayadoo 9 furan gabadha saalada la saaray please familko hooyo hadaa tahay ama aaba aad tahay mar walba insha Allah go'aanka dhanka ilaahay jirta lag mar walba hala soo tashto wixii imaado hospitaalka marka la imaado oo hoggaansan dhaqtarkaaga wuxuu ku dhahay wax dhibaato kaaga imaanaya asiga inay caadi u dhashay wuu jecel yahay laakiin hadii imaa weyse maxaa la sameynaya waa in xaaladda uu fudo ilmahaas lagu badbaadin karo hooyo lagu badbaadin karo in la sameeyo marka ugu dambeyn qaybtan dambena video waxa waaye macsalaameedka hospitaalka marka insha Allah alxamdulillah abaayo sababta loo qala waxay foosha imaa weyse waa la fuuliyay ugu dambeyn waa la qalay babyga qandiciska sababta noogu galane waa ni shooshay gabdhiga quruxda ba insha Allah mar walba muhiim ku tahay ilmahaaga yar meel uu ka helayo care fara badan ina u doortid adigana aad dooratid maadaama 9 bilood xaalad ku soo jirtay waxa u baahan tahay meel aad ku nasan kartid wasi qurux badan lagu adeegi karo mar insha Allah taladeyda waxay tahay gabdhiga quruxda badan ina familku isku duuban ay yeeshaan dhaqtarka taladiisa Soomaali Maxamed isbitaal markay tagaan ayaga dhaqtar isku dhaqtarada warkii ay sheegtay lama dhageysanayo dhaqtarku wuxuu sheegay lama dhageysanayo mararka qaar dad qaar waxay dhahayaan waxay u baahan yihiin lacag fara badan in naga sameeya lacag wax ma tarto bilis babygeena hada qiimaha ku baxday habeenkii lacag yar ahayd $30 45 discount helnay $30 habeenkii noogu seexday deecaan beerkiisa hoos u dhacay aan ilaahay ku caafiyo kor u soo qaas sababtaas maxay wax badan uma baahneen daaweer habeenkii la siiyo oo 2 waqti subaxdii habeenkii qandiciskaasna wuu hela ama qoraxdaas titooresan halkaana uu maxdalina qaybta baxnaanada joogtaa waa dhaqtarada naxariis badan waa keerka caruurta ma sha Allah tabaaraka rahmaan ilma fara badan ka buuxaan neeftooda lacag ee ahayd
ilaahu caafi rabbi raxmaano beebiga ugu caafimaad badan galay waqti ugu yarna kasoo baxo ahaa beebigeena alxamdulilah ilaaha ma hadda iskale insha allah inta beebiyaal noogu jirtan dhammaantood ilaaha nooga soo bixiyo marba insha allah balanteena waa hooyooyin doorta meel aa ka heli kartid adeeg qurux badan hooyada waa u muhiim inay heli karto wax walba beebigeeda u baahan yahay wax walba ayada u baahan tahay isbitaalka intaas ku doorta dhakhtarad wanaagsan haddii ay joogtana waa ku jiidan kartaa maasha allah tabaaraka raxmaan alaabaheena halkan xirxirinayna isbitaal haddii lagama sheekeynayo kulleysada tarmuuska hada ilaahu famil la-aan hala dhigin abaayana meeshaan waxay taagantahay alxamdulilah daawo dambe leyma siinaayo qof marka la qaro faleenbi asi saaxiibay noqonayaan alxamdulilah waxay taagantahay faleenbaa iga soo dhamaatay marka halkan uu mahad celinaya inaan mar walba u mahad celiyo kama daalaye tataros waa mahadsan tahay sida quruxda badan maasha allah naxariista fara badan adiga iyo tiimkaaga aan noogu shaqeysa halkaan ii mahad celinaya qalbiga kaa ogsoone waa mahadsantihiin sida quruxda adeeg adag ee baaynoysaa dhakhaatiir fara badan oo wadanka dibadiisa ka imaaday ku jirta abaay maasha allah from China waaye haddii aad jeceshahay ya si qurux badan qaybta qaliimada ayada ku joogto qaybta deliveryga wax walba u baahan tahay insha allah waa la kulmi kartaa talooyin fara badan ay ku siin doontaa mar walbana talada dhakhtarka waa ku muhiim team nutrition mar walba dhakhtarka taladiisa waa inaa qaadataan familka mararka qaar waxaa leedahay dadkan maxaa waaye marka hospital la imaado adiga waxa u baahan tahay care fara badan waxa u baahan tahay wax badan in lagu fahansiyo waxa u baahan tahay si qurux badan in lagu adeego laakiin hadii markii go'aan lagu sheey adna go'aan ay qaadanaysid meesha waxa ka imaan karo riski fara badan hooyada dhibaato gaari karta ilmaha dhibaato meeqa isbitaal inta la geeyay ilmahooda xaalada emergency galeen meeqa la geeyay hooyooyin ayaga emergency galeen dhiig bax u dhinteen ayagoo isbitaal joogan sababta maxay tahay familka wax laga qaban waay uu diidayo waxa leeyahay hooyadan dhiig in lagu shubo u baahan tahay uma baahno dhiig lagu shubayo hooyadan waa in isla markii hadda xaalad emergency waay cunuguna garaac soo isbada waa in la qala lama qalaayo isbitaalka la hooyada xanuun haya waxa laga yaabaa in baawur la saar isbitaalka la geeyo hay hooyada doominkeeda qarxo ilmaheeda hadii uu ku dhex dhinto hadii ay dhiig bax u dhimato yaa qaadayo culeyskaas marka insha Allah mar walbo muhiim inoo tahay gabdhahaygiyo team nutrition inaan insha Allah videogan wax yar Allah ka dhigay ee ka faa'iido doonteen rajeynaya si nabada hospitaalka ugu soo baxnay si nabada xaafadeena ugu socnaa alxamdulillah si qurux badan noo soo macsalaamay anagoo faraxsan oo qurux badan isbitaalka ka soo baxnay alxamdulillah inta ugu soo tagnana ilaahay ha wada caafiyo inta dhimatana ilaahay ha u naxariis hada beebigeena markaas soo aan bixin anaga waa faraxsaneen familkalna way murugsanaayeen hooyo aydan ICU ku jirtay aa dhimatay ilaahay u naxariisto anagana qaybta keerka ku jiro way iska soo horjeedeen anagoo faraxsanaa beebigiina wuu caafimaad qabaa soo qaata dhicaankaas aan sheegayna waxa muhiim cunug in qoraxda la dhigo qoraxda marka la dhigoyo ayaantan subaxdii ayadoo qandacad 20 daqiiqo kale jirkiisa waa inuu qandac noqdaa ka bacd gudaha la iska gelinaya mar walba insha Allah muhiim ku tahay raac talada dhakhtarkaada wax badan oo culeys ah ee ka badbaadinaysa gabdhiga quruxda badan dhammaantiin familiyada isku duub waxaan leeyahay mar walba waa noo muhiim inaan raacno talada dhakhtarka waa maasantiin salaamu calaykum